Laamaha ammaanka ee magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maanta meel fagaara ah ku gubay qaad si dhuumaalaysi ah loo soo geliyay magaalada, kaasi oo la mamnuucay si looga hortago faafitaanka cudurka halista ee coronavirus. Howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska Galmudug ee degmada Cabudwaaq ayaa gudaha iyo daafaha magaalada looga soo qabtay qaad isla markaana maanta la gubay. Taliyaha booliska degmada Cabudwaaq Qalbi Nuur ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen 5 ruux iyo gaadiidka qaadka lagu waday, kuwa kalena ay baxsadeen oo ay ku raad joogaan. Waxa uu digniin u diray dadka qaadka oo la mamnuucay soo gelinaya gudaha magaalada, isaga oo sheegay in ilaa iyo mar kale uu amar ka soo baxayo dowladda federaalka Soomaaliya qaadka uu mamnuuc ka yahay in la soo geliyo gudaha degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Ibrahim Maxamed Xasan, Ibrahim Jamuni, Radio Wadaniyan TV.